wuxuu jecel yahay inuu daawado kubadda cagta aniguna waxaan ka helaa inaan sameeyo waxyaabo kale laakiin iyagu waa dad dagaal kaba jecel oo u soo banbaxaya macaarigta sidaas ayayna sameeyaan soo sidaas ma aha Tony dabcan waa dad adkaysi badan haddii aad rabtaan inaad ogaataan awoodda iyo adkaysiga ay dagaalada u leeyihiin waxaad waraysataan Ruushka. That's what they do. You know, Tony wants to go watch a football game. I want to go do things. They want to come out and fight. That's what they do. Right, Tony? They're probably a little tougher than Tony, but that's okay. Just ask Russia if they're tough. kulantin wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada channelkayga Mucjisati fadlan hadaad nagu cusub tahay subscribe saar siina share garee la wadaag asxaabtaada. warbaahinta adduunka ayaa hadlaysa awoodda ay la soo baxday imaarada islaamiga Afghanistan ee loo yaqaan Taliban kadib 19 sanadood oo ay dagaal culus kula jirtay dawladda Mareykanka iyo isbahaysiga ugu awoodda badan caalamka ee NATO loo yaqaan. Taliban oo dagaalkeeda iyo colaadinteeda aysan u kala hayn caalamka bari ee galbeed ayaa sanka dhulka ugu jiiday Ameerika iyo xulufadeeda waxayna noqotay awood aan la loodin karin oo gacanta ku dhigtay dhulka Afghanistan 70% taasi waxay sababtay in Mareykanka iyo xulufadiisa ka bariyaan inay u ogolaadaan wada hadal fursadna u siiyaan ciidamadooda ay kala baxaan wadankan oo lagu laayay 10,000 askari oo reer galbeed ah. khubarada militariga iyo maraakiista casriga ayaa bilaabay inay taxliiliyaan oo ay falanqeeyaan waxa Taliban u suurtageliyay inay ka adkaadaan Mareykanka oo sheegtay midka military ahaan iyo dhaqaale ahaan ugu ballaaran caalamka. inta Taliban waxay noqdeen mawsuuco askari ah oo ay casharo dagaal ka bartaan kooxaha hubeysan ee ku kacsan dawladahooda. maxad ay madax ka yihiin jeneraal howlgab ah ayaa dhawaan soo saaray daraasad military oo si aad ah loogu qaada dhigayo dagaalka xarbul cisaabaadka ah ee Taliban uga adkaatay Mareykanka iyo isbahaysiga NATO. daraasadan oo tobaneeyo bog ka kooban ayaa ciwaan looga dhigay taatiigta Taliban ee koonfurta Afghanistan 2005 ilaa 2008. daraasadan waxaa qoray Carter Malkas iyo sidoo kale Jerry Mirley oo labadaba jeneraal howlgab American ah. waxay diiradda ku saarayaan weeraro fariid ah oo mujaahidiinta Taliban ay ka fuliyeen koonfurta dalka Afghanistan gaar ahaan gobolka Kandahar halkaas oo 10 lama ilaabana loogu dhigay militariga Mareykanka. hordhaca daraasada macadka ayaa lagu soo bandhigayaa qariidooyinka goobihii dagaalada ugu badan ay ka galeen Taliban iyo qaababkii weerarada ku dhufo oo ka dhaqaaqa ugu naafeeyeen ciidanka Mareykanka. buugan laga diyaariyay xeeladaha dagaal ee Taliban waxaa lagu soo bandhigayaa 19 kamid ah weeraradii ugu muhiimsanaa ee ka fuliyeen koonfurta dalka Afghanistan. marka aad maqasho koonfurta Afghanistan durba waxaa maankaaga ku soo dhacaya Kandahar iyo hogaamintii jabhadka militariga ee Mullah. عمليات كأي تحليليا مراكز تمرتري غير قلبات كوحا كميدا 8 weerar كمان دبقل 5 weerar توصي لحولقل أو أها تأسكو دفاعيين. عمليات كستا وحا كل ران صور كقريرة هي تحليل ميليتري وحين قبرات الميليتري كوشيغيان كوا مدن اندروس دانك حربيغا لغا قاطو. Mareykanka ee Donald Trump ayaa sanadii la soo dhaafay dabayaaqadeedii khudbad uu jeediyay soo hadal qaaday sida uu la tacajubay geesiga iyo sida ay u jecel yihiin dagaalada halka ciidamada Mareykanka ay qus kaga muujinayaan macaarigta. The generals came to me on Afghanistan, sir, it's going to be a rough spring. Why? My first year. Why? Well, sir, the Taliban's going to come out of the mountains and they're going to start fighting. I said, but why do you say rough? Well, that's generaalada ayaa ii yimid anigoo jooga Afghanistan waxay igu yiraahdeen mudane gugan wuxuu noqon doonaa mid aad u adag. waxaan ku iri maxay tahay sababta? waa sanadkii iigu horeeyay ee aan xafiiska imid waxaana weydiiyay sababta. waxay yiraahdeen mudane dagaalyahanada Taliban waxay doonayaan inay ka soo baxaan buuraha oo ay bilaabaan dagaal xooggan. waxaan ku iri maxay u tiraahdeen waa mid adag? waxay yiraahdeen waa caado dhaqameed ay muddo 1000 sano ka badan ay sameeyeen. marka sanad waliba la gaaro xilliga guga way isa soo bahaystaan duulaan ayayna soo qaadaan sidaas ayay sameeyaan. waa dad aad ugu wanaagsan dagaalada oo leh dagaalyahano wanaagsan sidaas ayayna sameeyaan. laakiin waad ogtahay annagu gabi ahaanba sidaas ma nihin. Tony wuxuu jecel yahay inuu daawado kubadda cagta aniguna waxaan ka helaa inaan sameeyo waxyaabo kale laakiin iyagu waa dad dagaal kaba jecel oo u soo banbaxaya macaarigta sidaas ayayna sameeyaan. soo sidaas ma aha Tony dabcan waa dad adkaysi badan haddii aad rabtaan inaad ogaataan awoodda iyo adkaysiga ay dagaalada u leeyihiin waxaad waraysataan Ruushka. That's what they do.
Tony wants to go watch a football game. I want to go do things. They want to come out and fight. That's what they do. Right, Tony? They're probably a little tougher than Tony, but that's okay. Just ask Russia if they're tough. dhinaca kale dhabarjabka Mareykanka ku gaaray Afghanistan ma ahan oo kaliya mid military ee waxa barbar socda guuldaro dhaqaale oo baaxad leh macadka faarooda arrimaha dagaalada oo laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday qarashka Mareykanka uga baxay duulaanka 19 sano jirsaday oo 2001 inka Afghanistan ku qaaday macadkan oo ay si wadajir u aasaaseen jamaacada Barwan iyo Boston ee ku yaala wadanka Mareykanka ayaa qiimeyn sanado badan qaatay kadib wuxuu daaha ka rogay in Mareykanka uu lacag xad dhaaf ah ku bixiyay duulaanka uu ku qaaday wadanka Afghanistan tan iyo 2001 ilaa 2020 wuxuu Mareykanka ku qarash gariyay dagaalada Afghanistan lacag dhan $2 trilyan sida uu sheegay macadka Causes of War ee fadhigiisa wadanka Mareykanka si guud dhaqaalaha Mareykanka uga baxay dagaalka caalamiga ah ee ka dhanka muslimiinta una ku horinayo wadamo dhowr ah oo ka tirsan caalamka islaamka waxay gaaraysaa $6.4 trilyan sida uu sheegay macadka warbixin dhawaan uu baayay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in dagaalka Afghanistan uu Mareykanka ku bixiyay lacag gaaraysa in ka badan $2 trilyan waa tirada uu hadda shaaciyay macadka Causes of War ee ka faalooda arrimaha dagaalada Washington Post waxay intaasi ku dartay in dagaalka Afghanistan lagu dilay 6300 oo askari oo Mareykan ah waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in tirada ciidamada Mareykanka loogu dilay Afghanistan ay aad uga badan tahay intaasi marka laga hadlo tirada guud ee ciidamada Mareykanka kana qayb galay dagaalka Afghanistan waxay gaarayaan 600 oo kun oo askari kuwaas oo 18 sano ee la soo dhaafay isku bedbedelay wadankaasi waxaana hadda Afghanistan ka jooga Mareykanka 12 kun oo askari xukuumadii isxiixiga ee Mareykanka soo maray ayaa aad uga gaabsanaya ka hadalka dhaqaalaha Mareykanka uga baxay duulaanka Afghanistan iyo tirada ciidamada uu ku waayay dagaalkaasi waxaase Mareykanka Afghanistan uu arkaa inuu yahay mid uu ku qasaaray oo ay tahay in si degdeg ah loo soo afjaro dhawaan ayaa maamulka Trump wuxuu saacad u sheegay in 14 bilood gudahood uu guud ahaan ciidamadiisa uu kala bixi doono wadanka Afghanistan ee reer Afghanistan ay dhisanayaan maamulka ay doonayaan haddii ka bixitaanka Mareykanka Afghanistan uu dhab noqdo waxay ka dhigan tahay in imaarada Islaamiga Afghanistan ay la wareegto inta uga dhiman Afghanistan oo la eg 20% maadaama ay hadda si buuxda u maamusho celcelis ahaan 80% masaaxada guud ee dalka Afghanistan siyaasiyiinta Mareykanka iyo warbaahintooda ayaa sheegaya in Mareykanka uu ka soo baxayo Afghanistan isagoo jabay kuna qasaaray dhaqaalihii iyo ciidankii uu huray dagaalka Afghanistan ee 20 sano ku dhow maadaama aanu xaqiijin hadafkii uu lahaa oo ahaa inuu ka takhaluso imaarada Islaamiga ee Afghanistan dalkana ka hirgeliyo dawlad isaga gacanta uu ku hayo oo dimuqraadiyad ah iyo wax la mid ah dalka ku hagta dagaal dhanka ascaarta suuqyada naftada ah ayaa ka dhex qarxay dawladaha ugu tunka weyn ee soo saara naftada ugu badan ee laga isticmaalo caalamka arrinkaasoo durbadiiba saameeyey suuqyada shidaalka adduunka dawladda Sacuudiga ayaa maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay suuqyada adduunka ku maashaysay naftadii ugu badneed oo ay dibadda u dhoofiso tallaabadaas oo keentay in uu hoos u dhac ballaaran ku yimaado qiimaha lagu kala iibsado shidaalka caalami ahaan shirkadaha naftada Sacuudiga ee loo yaqaano Aramco ayaa sheegtay inay adduunka u dhoofisay malaayiin baramiil oo nafto ah si ay u buuxiso baahida shidaal ee loo qabo sababo la xiriira cudurka coronavirus oo sababay in dawlado badan ay badeecadaha ganacsiga isugu gudbin waayaan loolanka u dhaxeeya dawladaha Ruushka iyo ururka OPEC oo ay ku midaysan yihiin dawladaha soo saara shidaalka ayaa Sacuudiga fursad u siiyay inuu sii wado in suuqyada adduunka uu ku maasheeyo nafto raqiis ah dawladda Ruushka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in marnaba aysan hoos u dhigi doonin wax soo saarkeeda maalinlaha shidaalka ah taasoo sababtay in Sacuudiga uu isna laba jibaaro shidaalka uu maalin walba adduunka u dhoofiyo shidaalka ceyriin ee Sacuudiga dibadda u dhoofiyo ayaa halkii barmiil lagu kala iibsadaa inta u dhaxaysa $25 ilaa $28 taasoo Ruushka ku qasabtay in qiimaha shidaalkiisa uu ka dhigo halkii barmiil $30 dawladda Al Sacuud ayaa doonaysa inay Ruushka kula loolanto suuqyada gaaska iyo shidaalka ee qaaradda Yurub kuwaas oo badankood ku tiirsan shidaalka Ruushka cunqabataymo dheeraad ah oo Mareykanku uu ku soo rogay dhaqaalaha Ruushka ayaa sababay in Sacuudiga uu suuqan soo xiriirsado
nin lagu magacaabo cabdalla bin xamed oo horey usoo noqday wasiirka batroolka dowladda qatar ayaa sheegay in sacuudiga iyo imaaraadka aysan sii wadi karin loolanka ay kula jiraan ururka OPEC ayna ku qasbanaan doonaan inay khafiifiyaan qiimaha dhicidda sicirka shidaalkooda sabab la xiriira dowlado badan oo bilaabi doona inay isticmaalaan kaydadkooda shidaalka marka la xadido cudurka dilaaga coronavirus. dowladda Mareykanka ayaa la sheegaa inay tahay dowladda ugu weyn ee leh kaydka shidaalka adduunka waxaana u kaydsan balaayin barmiil oo nafta ah oo ay dowladaha khaliijka ay ka soo iibsatay waxaana u sii dheer kaydad shidaal oo dhulkeeda dhex ceegaaga kuwaas oo aan weli la isticmaalin. maleeshiyada cad u ah dowladda imaaraadka carabta ayaa la wareegay gacan ku haynta garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada cadan ee caasimada ku meel gaarka u ah wadanka Yemen. hogaamiye ka tirsan maleeshiyadka gooni u goosatada ee imaaraad ku tababaray ayaa sheegay in ciidamada golaha ku meel gaarka ee koonfurta Yemen ay yihiin kuwa sharciga ah ee lagala tashanayo maamulka magaalada cadan. Colonel Rami Mohamed Muthana oo ah taliyaha katiibada Xazaam 4 ayaa uga digay Sacuudiga inay dhayalsadaan awoodda ciidamada golaha ku meel gaarka wuxuuna sheegay in xaaladdu ay faraha ka bixi doonto haddii aan maleeshiyaadkooda lagu wareejin kaabayaasha muhiimka ah ee magaalada cadan. maleeshiyaadkan imaaraad ku tababaray ayaa jimcihii la soo dhaafay xoog ku galay garoonka diyaaradaha caalamiga ee cadan iyagoo u diiday ciidamada Sacuudiga inay isbedel ku sameeyaan ciidamadii hore halkaasi ugu sugnaa. talaabadan ay qaadeen saraakiisha maleeshiyaadka gooni u goosatada ah ee imaaraadka tababaray ayaa waxba kama jiraan ka dhigaysa heshiis sanadkii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Riyaad kaasoo awoodda ay ku qaybsadeen xukuumadda taagta daran ee Cabdirabbi madaxda ka yahay iyo maleeshiyaadka golaha ku meel gaarka ee ka jira koonfurta Yemen. cudurka coronavirus ayaa weli farabaan ku haya inta badan wadamada caalamka isagoo geysanaya khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed oo baaxad weyn leh. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyay in baaritaan caafimaad oo lagu sameeyay lagana waayay cudurka coronavirus. afyeen u hadlay aqalka cad ayaa warbaahinta u sheegay in Trump la marsiiyay dhammaan baaritaanada caafimaad isla markaana uu ka caafimaad qabo caabuqa coronavirus. cudurkan halista ah ayaa saacadii la soo dhaafay dilay boqolaal qof isagoo soo ritay kumanaan kun oo ku nool daafaha caalamka. wararka ka imaanaya dalka Al-Maghrib ama Morocco ayaa sheegay in wasiirka qalabaynta iyo guryeynta wadankaas uu soo ritay coronavirus. bayaan ka soo baxay xukuumadda Rabaad ayaa lagu sheegay in wasiir Cabdiqaadir Acmaar uu la dhiban yahay cudurka coronavirus waxaana la fasaxay dhammaan shaqaalaha wasaaradda. tani waxay ka dhigan tahay wasiirkii ugu horeeyay oo carbeed oo uu asiibo cudurkan caalamka ku sii faafaya. dowladda Morocco waxay xaqiijisay in ay diiwaan gelisay 18 qof oo qaba viruska corona waxaana la mamnuucay in dadku isugu tagaan maqaayadaha iyo goobaha waxbarashada. dhanka wadanka Talyaaniga oo ah dalka labaad ee uu faraha baan ku hayo coronavirus shalay waxay u ahayd maalin kale oo boqolaal qof ay u dhinteen. wasaaradda caafimaadka Talyaaniga ayaa cilaamisay in shalay oo kaliya ay dhinteen 155 qof kuwaas oo ku dhintay 8 magaalo oo ay ku jirto magaalada Milan oo ah caasimadda dhaqaalaha wadankaasi. tirada guud ee dadka corona uu ku dilay Talyaaniga ayaa kor u dhaaftay 1441 qof halka in ka badan 21150 qof ay la jifaan cudurka. dowladda Spain ayaa iyana ku dhawaaqday in xaaska ra'iisul wasaaraha wadankaasi uu soo ritay coronavirus. dowladda Iran ayaa waxay xaqiijisay in shalay oo kaliya uu coronavirus 97 qof ka dilay halka boqolaal kale uu soo ritay. tirada guud ee dadka Iran ugu dhintay coronavirus waa 612 qof. inta badan dowladaha caalamka ayaa ku dhawaaqay inay qaadayaan olole ay uga feejignaanayaan halista cudurka dilaaga ah ee coronavirus. dowladda Sacuudiga oo kamid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan dowladaha khaliijka ayaa ku dhawaaqday in muddo 2 isbuuc ah ay joojisay dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa ee wadanka soo gali jiray iyo kuwii ka bixi jiray. wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga waxay sheegtay in la xirayo garoomada diyaaradaha wadanka laga bilaabo maalinta Axadda si loo xakameeyo cudurka dilaaga ah ee coronavirus kaasoo halis ku haya wadamada qaaradda Aasiya iyo kuwa reer Yurub. Sacuudigu wuxuu sheegay inuu cabsi weyn ka qabo in cudurkan bulshada ay ku dhex faafiyaan dadka dalka dibadiisa ka imaanaya sidaa daraadeed ay u hakiyeen duulimaadyadii diyaaradaha caalamiga ahaa. dhinaca kale dowladda Mauritania ayaa sheegtay inay muddo isbuucyo ah ay hakisay duulimaadyadii diyaaradaha isla markaana ay xirtay xarumaha dowladda si looga gaashaanto viruska corona.